ninkan markii shaqada laga soo eriyay kadib muddo dhowr bilooda isbuuc kasta wuxuu sameyn jiray lacag ka badan $1,000 isagoo kaliya ta shaqadiisuna ay ahayd inuu dadka safka u istaago amba salaynka. magaciisu waa Robert Samuel, wuxuu ku nool yahay New York. Robert wuxuu si la yaab leh u qabsaday baraha bulshada markii uu sameeyay ficil runtii dad badan soo jeetay. isaga oo shaqada laga eriyay muddo dhowr bilood gudaheeda wuxuu ku sameeyay $10,000. Robert isagoo xaaladda noloshiisa iska adkayd ayaa waxa soo martay run ahaantii qiso aad iyo aad u la yaab badan, taasoo noqotay qisada guushiisa. ninkani wuxuu caan ku noqday kaliyaata ambase shaqadiisuna ay ahayd lacagta badanna uu ka sameeyay waa fikrad yar oo runtii aad iyo aad u cajiib badan, taasoo ahayd inuu dadka safka u istaago. qof kasta oo kasoo codsada inuu faylkaas u galo amba safkaas uu u istaago saacado yaro kooban gudaheed wuxuu kaga qaadan jiray lacag intuu ugu jiro safka. soo dhow daawada mar kale waa anigoo ah Nadara Saciid. nala joogi lahay dhamaadka muuqaalkan, laga yaabaa ninkan qisada guushiisa inay adigana wax badan kaa bedeli doonto ku saameyn doonto. waxaa dhici karta inaad ka qaadatid fikrad ganacsi. sidoo kale muuqaalkan waqti badan baa iga soo galay, fadlan like ii saar adigoo igu dhiirigelinaya, like teer hala bakhaylin. waqtiyada kamida Robert Samuel wuxuu ahaa mid noloshiisu ay aad u adag tahay. dhaqaale ku filan muu haysanin uu reerkiisa noloshiisaba ku daryeeli karayo. iyadoo ay saas tahay haddana waxaa laga soo eriyay shaqadii. Robert 2012 waxay u ahayd waqti aad iyo aad ugu adag isaga. markii laga soo wareegay muddo dhowr bilooda kadib isagoo weli wax shaqo ah helin, shirkadda Apple ayaa waxay soo bandhigaysay iPhone 5 waqtigaas. dhammaan dadkii joogay waqtigaas New York waxay kusoo kalaheen Apple Store si ay uga qayb qaataan amba si ay ugu soo iibsadaan iPhone 5. waxay ku jireen safaf aad iyo aad u dhaadheer kuwaasoo saacado badan iyo welibana muddo badan ku qaatay inay sugaan. Robert meesha wuxuu kula kulmayay ambase uu ku arkayay dad taajiriina kuwaasoo dhammaantoodba wada sugaya iPhone-kaas ambase aad iyo aad ugu xiiso qabay inay iibsadaan. mid ka mid a dadkii ay safka ku wada jireen Robert ayaa wuxuu ka codsaday muddo saacada inuu laynkiisa ambase positionkiisa u sii ilaaliyo. sidoo kalena wuxuu ku yidhi waxaan ku siin doonaa $350 haddii muddadaas saacadaha aad booskayga ii ilaaliso. Robert la yaab ayay ku noqotay, isla markiiba wuu ogolaaday. isla markiiba waxaa ku dhashay fikradii ganacsigiisa taas oo uu ku guuleystay. Robert maadaama waqtigaas uu bilaa shaqo ahaa wuxuu go'aan ku gaaray inuu dadka safafka u istaago ambase laynka si uu uga helo lacag yar oo xitaa reerkiisa uu ku biilo, yacni uu kasii dhigto kumeel gaar intuu shaqo ka helayo. balse siduu moodayay iyo welibana wuxuu filinayay toona mabay noqonba. lacag aanu marnaba filanaynin ayuu wuxuu ku sameeyey muddo wiig gudaheeda. hadaladiisi waxaa ka mid ahaa ma moodaynin inaan ku bixin doono carruurta iskuulkooda, sidoo kale kirada guriga, biilka xaafadda. Robert wuxuu yidhi lacagtu way nagu filnaatay markaasi welibana ka badatay saan moodayay. I originally thought that same online dudes would just be potential side income, that there would just be enough to pay like my cell phone bill or get a monthly train pass. I never thought it would pay my rent, help me pay my student loans, and also employ my friends and family so that they could, have extra for them. So it's really been a blessing. sidoo kale wuxuu yidhi waxaan soo shaqo geliyey faamiligayga, asxaabtayda. waqti xaadirkan Robert wuxuu leeyahay company weyn, wuxuu u bixiyey Same Online Dude. ku dhowaad waxaa ka shaqeeya ilaa 30 qof kuwaasoo kale ah saaxiibadii iyo qoyskiisa oo keliyaata. laakiinse daawada dhinaca kale markaynu ka eegno shaqadan yaani kula noqonin mid aad iyo aad u fudud. Robert ayaa mar la weydiiyey saacadihii ugu badnaayay safka uu taagnaa, wuxuu sheegay inay ahayd 19 saacadood. The longest you've ever waited in line is how long? The longest I've waited in line was 19 hours for the iPhone 5S last year. sidoo kale cimiladu markay isbedesho jawi kastoo lagu jiro hadday kulay noqoto iyo hadday qabow noqotaba Robert wuxuu ahaa mid shaqadiisa isagu gudanaya oo safka taagan. run ahaantii isagii tiimkiisaba halkaa waxay kala kulmeen caqabado badan iyo welibana dhibaato. xaalad kasta iyo jawi kastaba way u adkeysanayeen. run ahaantii may noqonin qaar sidaa fudud isku dhiibaya. Robert hadaladiisii la yaabka lahaa waxaa ka mid a wuxuu yidhi haddii aad haysid fikrad ma waalid, laakiinse waxaa waaliya haddii aanad hirgelin oo aanad isku badayinba inaad ficil samayso. wuxuu yidhi haddii aad ficil samayso kadibna ay shaqayso runtii ma ahayn fikrad waalan, keliya waxay kaaga baahnayd inaad bilowdo. If you have an idea, it's not crazy. It's only crazy if you don't try to implement it and you don't try to put it to action. So if you put it to action and it works, then hey, it wasn't crazy at all to begin with. daawade maxaad ka fahantay qisadan ambase fikrad nooceeya ayaad ka qaadatay? nagula wadaag xagga commentiga. sidoo kale weligaa ma isku dayday inaad samaysid ganacsi adiga ku gaara? waa anigoo ah Nadara Saciid. fadlan muuqaalkan xaqiisa si adigoo like saaraya. waad mahadsantahay haddii aad nala joogtay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan. Ramadaan mubaarak. The weather
is a challenge. If we're not properly prepared, we get rained on, or it's too cold and we don't have enough layers on. Oh my God, what time did you get here this morning? 5:30. Hire a professional line sitter next time. We wait for your wants. If it's raining, you have family visiting and you don't want to wait for them, you call us and we do the wait for you. All right, enjoy the show.